الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده الميزان يخفض ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشف سبحات وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. محاضرة عنوان كذو وعنوان صحيحة: تعالوا نؤمن بربنا ساعة. وحي كسو سقناتي أما كسو واردي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الله مركي وحوغي فتور أي دريمان إنay isku tirtirsiyaan, inay fariistaan oo ay rabbigood xusaan oo saacad khaasa lidikrillahi ka dhigaan, iyagoo marka horeba aan ghaafiliin ahayn oo aan rabbigood hilmaansanayn, ayaa haddana insaanku waa bani aadam ee cawaaliqda ku xidhan iyo umuurtiisa dunyawiga ah ayaa ilowsiinaysa waxyaalo badan oo markii hore u xusuusnaa. markaasay odhan jireen: tacaaluu nu'min birabbina saaca. maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahayna waxaa weeye in allah subxaanahu wa tacaala la xusuusto oo yacni mashaaqilka dunyawiga ah ee insaanka la soo gudboonaanaya ee in badan ilowsiinaya inuu qalbigiisa uu u tafaruqiyo lidikri illaahi awqaadda qaarkeed. waa sidii dhacday ama ku sugnaatay xadiidkii xandala radia allahu canhu. xandala kaana min aلصaxaabati اlkiraam. wuxuu dareemay markuu nebiga la joogo calayhi الsalaaةu wasalaam fii xalaqaati الdikri iyo markuu gurigiisa ku noqdo inay arrintiisu isbeddelayso. wuxuu isyidhi ama uu isku xukumay inuu munaafaqoobay. naafaqa xandala lafdigaasuu isticmaalay. abu bakr buu ku yidhi radia allahu canhu: ya abaa bakr, naafaqa xandala. ninkii xandala ahaa waa munaafaqoobay. oo maxaa dhacay? markaan nebiga la joogna calayhi الsalaaةu wasalaam yudakirunaa biاljannati waannaar, naar iyo janno uuna xusuusiyo, kaannaa ra'yi cayn, sidii annagoo aragnaa noqonaynaa. naartii iyo jannadii annagoo aragnoo kalaa noqonaynaa. markaan reeraheennii ku noqofno wacaafasna alaswaaja waadaycaat, bimacnaa khaaladnaa aan dheehno zawjaadkii iyo ciyaalkii iyo mashaaqilkoodii, nasiina kaiiran, in badan baan iloobaynaa oo wixii aan xusuusnay. marka tabadulka iyo isbeddelka qalbigiisa ku dhacay intaa yar ayuu wuxuu ka cabbiray inuu ku munaafaqoobay. abu bakr radia allahu canhu wuxuu yidhi: sidaasoo kale un baan aniguna ahay. nebigaa loo tegay calayhi الsalaaةu wasalaam. xandale wuxuu yidhi: yaa rasuula allah, naafaqa xandala. xandala ninkii loola jiray waa munaafaqoobay. wamaa daaka, maxay tahay arrintaas? wuxuu yidhi: yaa rasuula allah, nakuunu cindak. markaannu kula joogno
تذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين أنه أرقنا مركان ريرهن يكون قلنا وإلو بين إن بدن مركان النبي عليه الصلاة والسلام لما حقيقه أقوى الرمي وحير لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم سيدا أكتيد آد كتهين هذا دائم لهيدين وقري إن مركز جوكتان سيدا آد أكتيدتين آد هان هايدين معناها واحد قال لهيدين كشف الحجاب غيبيات كأنذي كحجابا بابا الذين كشفي لها يو ملائك تابا إذن مصافحين لهيد إذن سلام لهيد ودوين كنا إيو على فرشكم سريرهن إيو فراشدهن إذن كوجيفة أي ملائك تودين ما الله إذن سلام لهيد ولكن يا حنظلة ساعة وساعة يعني ساعة وساعة ساعة وساعة وقيبوي يعني ساعة لذكر الله وللآخرة وساعة لمقتضيات الدنيا دي مقتضيات مشاكل كذا إنسان لو كلا قيبيه لكن أنا وقت كان هذا وحام وذننا نسوي دينه حنظل أرنت وكعب هذي يدبك وشاكتي يوحى مشغولي محي هايان قريس سمحوا قتجي قريس سمحوا ككوبنا alaabta taalla maxay ahayd waxa uu ka sheegtay uu yiri qalbigeygii baa isbedelay oo isugu xukumay nifaaq gurigiisa maxay yeelay waxaan shaki lahayn gurigiisu telefisyon TV ma olin iPad ma olin jamiicu ay shaytaan الآيفون والآيباد والآي جالكسي والآيات كلها الشيطانية وحبك ما أقولين حالا هذا نلقوا ابتليي من ما أقولين مغريات كان ملهيات كان ما أقولين حتى حيالا جلع سنة ونفتيسة ما أقولين قريه ذو حيسك أهايين قريه خشن وحن وجد أضق فراش كود وفراش أضق بوسكاها قل فدي قل جيفي قل عنت لقعني قل فلان ما كلا لهين أحدوا دم بهالقولهم بباها خير خلق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قل كي سواد مغاشين هل قل كليوها قل فدي قل جيفي مجري كاهم بالله سحلا كاهم بعنت لقعنا حتى جوجوش نفتر كذا لقوا سحنا يوا هل جو سجى يا فراشة سجى يا هذا مرتين تمادنا اللود جايا هدي عنت لعنا يسجى لقود العنا ما في شيء متاع الدنيا أنت سيكاهيد يضو متاع الدنيا هل كأي كتاج أنت هي أي هذا نكشكتين وإنه هو إنما مشغول شيء وذكر الله بينك مشغول شيء فكيف نحن مركوا أوباهنا هي ساعة كلية ما هي ساعات فربضن بنوباهنا هي أياما وليالي إن أنه آلاتك يقلبك يوحى إسكحرنو وإن إلهي درتي سقبحنو وإنه كرح بحنا الدنيا ذي بخت كذا يقولون كذا وقلوبتنا أن وجد إنه إلى الله بنوباهنا هي حقيقة زمن وحن جوجنا خلوة العبد مع ربه أي ضرورة نقطي إنه ربك يسخلوا لا يشو إن يروا هلا إلهي لا يشو وذكر يسوع ردن صدو وقرآنكم معنا ذو الحسن البصري رحمه الله حلقة شيء وحوري صدح ميلود معان كذا يضيع وحوري معانك صدح ميلود كر هذه صلاة معان كذا يضيع قرآن كمرك آخرية سنة معان هلا قد يضيع ذكر إلهي يعني قرآن كأهين سيد التسبيح ذي تهليل وكذا يسجنا معان هلا قر هذه شكل الآن معانك وموسى جيدين معان كان أنا قانو عرب كلا قرد دميه حلود إيو كيك إيو ألابتاس ما هن شقكم لهن معان كلو جيد معانكو حسن البصري رحمه الله كهذ لي ومعان قلبي وحوير هداد صدح ذا ميلود معان كويدان هداد هشام بويرها هداد هشام فإن وجدتموه معناه هو في عنتهم
وإلا هداد معانك ويدان صدح ذاس ميلود معانك ويدان فالباب مغلق الباب كويدي كحرين هاي وقاذا تلو الباب كوجيدي كواي باب كوجيدي هو باب الأنس بالله باب الأنس بالله الله رب العالمين باب كوهشدي سوي إن إلهي وهشته إلهي وهل نقطه وذكر جيسه هي حسوس تيسه أذو حسوته ما هو حسيسنها لا إله إلا الله صلاة باتكتي صلاة بعد معان لندن ستي معان كيف أكوسي لدمية تي كلام مسوي كرتين قور ما صلاة دي كلا أنقاري دونا وربي أن لم يناجون دونا فرائد كيف بعد ماذي شنتي فرض وعد ماذي قريه باللغو هيدي نول بابا ماشي يسيبو يهوي يسيبو قلي حبيب والبا حبيب كي يسيبو خالي للنقضي ولكن قلبه مع الله معانك باوسي لما يو صلاة الليل بو يستاغي فقام طول الليل يتململ إلى ربه سبحانه وتعالى أرمها سانغمقا هذا هو المطلوب مركا حقيقة قلوبتين وحيوبها انتهي يعني في هذا الزمن زمن المغريات والملهيات والمبعدات عن الله عز وجل خلاوي بدن فربضن si qalbiga loo cilaajiyo macaankaas loo soo ceshado oo salaadii ay ku dhadhanto oo aad xusuusato inaad rabbiga hor taagan tahay nin baa i weydiiyey su'aal wuxuu yidhi maxaa marka imaamku xoogay dheereeyo salaada aan u kahanaa oon u nacnaa marka isagu waa daabit sarkaal عسكري أو وزارة الداخلية كشقية وي ما شاء أن فردنا وحفيز سؤال شو إسكاكي ويدي أنا قلنا سؤال شيء سؤال كلا نقول جوابي وحان أديكو هدي هذا ضابط باتهايل كانت كشقية هدي وزير الداخلية هدي أعاوة كويرو ولقوا إلى بلان بعض لقوا سميي وحال قرب وزير الداخلية إن ذا كلنتو لبيه توبن كابينمو ما تقل هيد مش واحد هيد والله وقت دنبواية حرمي وتقلها وزير الداخلية كيف سين وتقل هذا طيب مركا تكتي وزيرك هذا كاير مشغولة وحوجي بنانك لو ير استاجي لو فريسي ماشي لو سوق مديد ما هو سوق لها أي مركا هر فريستي وزير كل شيء كيسنيسين ساعة ميات فيرن لهيد مر بودرون لهيد وانو ديري هذا الكلام ما يقول والله يعني حقيقة ندان كاغا ورا ما وحين كاس مركا وزيرك وي فكيف أميرك هادو كويا لأميرك ودن كان كوغو سريا ليلا قدر ما شنجو أميرك هادي كويا كور تا اسكبر داف بيري أميرك يعني هذه أمنية إذا بواي سان كويا لها هذه لو أميرك وقت لبيه توبنك كو ذهب إنما كهر مهليس واتقلها ليش بان المحجرة هذا هو الأمير وحن أنا كل شيء سببت مركز إلهي هرتيسة أد استاكتو أو كولا ديرانا يو لهذا الكإلهي لكن أميرك هرتيسة وهذا الكولا ديرانا إننا كل شيء لأنه حقيقة سنتهي أميركا أما مدحوينها نهرت هذا الجوجة إنه حاجات كاغوردن كو جودي كرو وحاضو باهنتها إن أتكهلي كرتو وحيالها تي حصوصا نيسا إمي سأرين بان كردن ميستا لأنه ودن كردن بو أتليا وزارة كستيساق حكومة حاجوين كمركا وزاروين كإيا كاغا حنحران إنه كو حلين كرو أيا دارين سنتهي مركساس أوجد وقت كستها النقطة ديار بعضهم تهي إنها قابشو وقتك وكل فريستنا وتكون مع سنيسا وجعلان سال الله سفر وسحب وحنا تنجمقا الله نهي واتاس مع الله إلهي وهرتا جنه لكن إنه حاجات كنا نوجد كرمية قنسنين سلادي وقالنا الله أكبر
qalbigeennana waxay ku wareeganaysaa hebel iyo hebel talow wax makuu qabanayaan rabbulcaalamiin baad hor taagan tahay makhluuqaadkanoo dhanna taxta qabdatihi isagaa wada xukuma boqorrada iyo umarada iyo adduunkao dhanba fii qabdatihi yafcalu maa yashaa marka haddaad og tahay yaqiinan dhab ahaan in addoon ilaahay aad tahay rabbigaa markaad hor taagan tahayna xaajadaada uu isagu kuu gudayo ilaahayna si dhaba uu qalbigaaga arrintaa uga daalacdo waxa waaye maadan dherarsateen waa ku macaansan lahayd dikrigiisa marka taa allahna waafajiya ikhwaani walaalayaal fi hadihi daqaa'iq almacduuda waxaan xusuusanaynaa oon isxusuusinaynaa rabbigeen jala jalaaluhu allahu aladii laa ilaaha illaa hu allah aan ilaah kala jirin rabbu hada alkowni huwa allah saxiix ilaahay annagu indhaha kama aragno adduunka intaan joogno in shaa allahu fi alaakhirati waan arki doonnaa walaakiin ilaahay jala jalaaluhu aayadihiisa kowniga ah iyo cajaa'iba qudradiisa uuna tusay waxay nagaga filan tahay inaan ku yaqiinsanno yaqiin dhab ahoo jaazima in rabbigeen uu jiro inuu waaxid yahay laa shariika lahu dadka caqligooda ma siinayo mana oggolaanayaan waxyaalahan ay samaystaan ee farsamaystaan waxbaa iska samaysmay saanic la'aan ma oggola sidii ninkii finlandiga ahaa doonta dhexdeeda annagoo salaad ku jirna noo yimid ee bacda salaadda markaan ka baxnay inuu nawaaniye isku keendayey ee yidhi wax jiraa ma jireen maxaad u sujuudaysaan ma idinka ugu sarraysaan adduunka ilaah baan rabbigan baan caabudaynaa baan marka wuxuu yidhi cilmiga iyo waxana dadku wax adduunka lagu gaaraya wax jiraa ma jiraan su'aal wajiihoo sahalahoo cid kaste iska garanaysa in badanna idinku soo warwareegay baan weydiiyey waxaan doontaan intaan la eg ee ilaa 12 dabaq ah ee kumaan kun qurfo iyo qolal ku yaallaan oo boqolaal ama kumaan kun baabuur qaadaysa doontan sidan ah ma kaa dhaadhici kartaa baan idhi inay iska samaysmatay horta imisay qaadatay baan idhi in badan baa la dhisay buui waxaan subaxun baa dadku soo toosay iyadoo iska taagan ma rumaysan lahayd mayu yidhi arrintaa ma rumaysan kartid may ma rumaysan karo waa in la sameeyey waxaad rabtaa haddaba aniga inaad iga dhaadhiciso koonkan adduunkan sidaan isaga samaysmay ee sidan u dhisan dhulkan iyo cirkan iyo qorraxdan aan weligeed ilbiriqsi wakhtigeedii ka soo hormarin ka soo dabamarin way iska samaysmeen masaasaad iga dhaadhicin kartaa waxaan ogahay baan idhi adiga caloosha hooyada markaad ku jirtay adise caloosha hooyada caloosheedaad ka soo baxday soo ma ahaa waxaan intay hooyada caloosha ay kugu haysay intii ka horraysay caano mayna lahayn mar alla markaad caloosheeda ka soo baxdayd bannaanka u soo baxday ayaanaase hooyada caana kaaga yimaadeen yaa isku beegay baan idhi wakhtiga adiga aad soo baxday iyo caanahaas yaa isku wakhti ka dhigay leesh maxay horey caano ugu yeelan weyse waxaan idhi rabbiga saas kuu tarbiyeeyey wuxuu ogaa inaadan ilka lahayn bariis iyo cunto iyo rooti aadan cuni karin marka raxmatan iyo tarbiyo uu ku barbaalinayo ayuu caanahaas kuu soo saaray mar alla marka adiga soo baxday hada huwa rabb subxaanahu rabbigaas waaye adiga waxaan uga hadlay aayaadkaas kowniga aan uga hadlay isla markii wuxuu yidhi waan ogahay buu yidhi inay jirto awood dadka ka sarraysa inay jirto laakiin shardi maaha yani hadalkiis shardi maaha inuusan ilaahay ahayn waxaan xusuustay fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun awood dadka ka sarraysa inay jirta ayuu qiray laakiin inuu ilaah yahay ma oggola yajxad allah caza wajal marka lilaahi alxamdu walminna walaalayaal rabbiga aan rumaysannahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu nicmeeyey nicmat aliimaani waalislaam
أن حصوصنا من خلال أياده ونعمه نعم كيس كوحا أذيك أبو ريتان كاغا إن حصوصته سيدات كبلابتي لأن تاسع إن بدن سوكا حريس أذيك إيو اسم الرب ربك كان وحبر باريي هو ربك الذي رباك أذون جرين كان أهكو أهيسيي كنت لا شيء ما أذن جرين إنسان وحلا يرى مذكور ماهن ما بحسنين با برحمته وإحسانه سواء عدنا وريسنن عدنا كذلبن أي إلهي وقاميي وقويي إن مخلوق إنسان لا يرى لا أبوره سلسلة دير به لكن أديك وحا ما تكاغو نقضي إن إلهي وكب اللابي كلا هو يدعي آبها أي كل من إن نطفة ممتزجة بين ماء أبيك وأمك إلهي كاسو صاري إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نطفة سين إلهي كأبوري كو مراحل آت مرتي هذا علقة دما متجمدا عالقا في جدار ديك لقنتي قنتن بعد هيد نكاغن وين هذا ما ركتي وحشمودي إن ديك بعد هيد يوم من الأيام كبعد مضغة هيد قبل يرو هلبا هذانا عظام با إلهي كاغا سمي كو سمي ولا فهاغن ليسكو تركيبي لفوه هلف إلهي كما وذا دقين هلف هدي لغا وذا دقين لها دباتوين بين نقول لها ماذا فريسان كرين ماذا سيعان كرين وحن وذا الله ميا جير كاغا لغا بالله وهدك قعمها أنا أنو هدو حكوفت في دين أيو فرها أن مرنا الله بيو مرة كلا في دين أيو إمسي حبناد وكيكو بيه حبين والبا حبين تكالي مادة لزجة ودريرة وكلا إلى لسان إني لفهاسي إسحقان با إلهي ودحيسي برحمته وإحسانه أمرك اللي هي جلبه طاعانك باكذا ماضي وإسحقيان جلبها كليكم مجران اللح صدح بقول هي اللحذا حبن أو اسكر ركبا با إلهي لفها كدغي مفاصل وما دداسي او دحيسا قلوين كان اوكش ان اطباء iyo caafimaadka dhabarka ka shaqeeya laf dhabarka in badanna waa leedin sheegan u maleynaya faqaraat baa في اللغة العربية فقرات ساسا isu haystaan laba faqro labadii lafba maada ilaahay u dhaxaysiiyay rabar oo kala ilaalinaysa oo keeni karta markii qofku uu fariisto ama uu inxinaa sameeyo ama dhabarkiisa soo laabo laabkii aqbalaysa markii ciladii ku timaado ama khushuuna ay gasho kaasa meeshii intuu ka yarbaxo ayuu casabkii iyo magaranaysa xididadii taabanaya xanuunka halkaas uu ka imanaya si lagu dareensiyo nicmada ilaahay uu ku siiyay subhanahu jalla jalaaluhu lafahaas murakkabka ee tarkiibka cajiibta leh ba iyagoo yar ilaahay calooshooyada ku abuuray wa bisun'ihi wa subhanahu wa ta'ala adduunyada maanta waxa la sameeyaa farsamo badan farsamooyinkaas in badan dadka ilaahay ku fidnay u noqotay fa idha masal insanu dhurrun da'ana fa idha masal insana dhurrun da'ana ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ويكون ذنوبين إن يوح كستسيطرين بوهايستان بينما شيء مجدكم أبوكم سبين كران وإن كشف هذه إن للوين لو إفتيم ياسلو أركو الله جل جلاله إنسان كان سدح مجدي هوستود أيوكو أبوري أو كسمي markuu dhammaystiray rabbiga abuuritaankeena markuu noo dhammaystiray nolol buu na siiyey meesha uu nagu noolaysiiyey waa meel banaanka laguma noolaan karo waa meesha aad aragteen ee ciriiriga ah dabadeedna allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo dureeriyey risqi min cindihi afka ilaa waxba kama cuno kale caloosha hooyada min dhicirkeeda iyo xuduntaada ilaahay isku xidhay halkaas qoodka lagu soo marin jiray
oo aad ka quudan jirtay iyo cunto ka qaadan jirtay bitadbiir min allah rabbuka alladii rabbaak muddo markii aad caloosha hooyadaa ku jirtay ee wakhtigii lagugu talagalay kuu dhammaatay aqlabkeeda waa 9 bilood way ka yaraan kartaa way ka yar badnaan kartaa ayaa ilaahay bannaanka kuu soo fasaxay waa lagu soo daayey mamlakadii ilaahay baa timid adigoon dalbin baasaboor soo qaadanin fiisa lagaa dalbin adkhalaka ilaa mulkihi yaa subxaana allah mar kasta waa xusuustaa shalay baa ugu dambayso markaan eraboorka halkan ka soo degay oo gabarh meesha fadhida ay baasaboorka iga qaaday aad bay u fiirfiirisay fiisada inay sax tahay inayna sax ahayn su'aalo badan igu weydiisay hadda ka hor meeshan ma timid waxaad doonaysaa yaad u socotaa markay ogaatay wax kasta inay sax yihiin ayay tiri tafadal waxaan xusuustay ilaahay inuu adduunka mamlakadiisa i soo geliyay bilaa baasaboor bilaa su'aal bilaa fiisa mamlakatu rabbi alcaalamiin bilaa fiisa cid fiisa soo qaadatay maa jirta weli ilaahay ma ku mahadiso ma tiri yaa rabbi laka alxamd inaad i keentay mamlakadaada iyo boqortooyadaada bilaa baasaboor wa bilaa fiisa mise ma xusuusnin arrintaa oo ay lowsannahay mar alla markaa caloosha hooyada in aan ka soo baxnayna tarbiye khaasaa bilaabatay oo kow ka tahay mar alla markii ilaahay uu ku keenay fi dunya maa kaana cindaka alasnaan ilkamaad lahayn cuntadii reer ku karsadeen ma cuni kartid allah subxaanahu wa tacaala caanuu kuu diyaariyey oo isla markaad soo baxday laabta hooyadaa lagaaga soo saaray waa min suncihi waxdahu laa shariika lahu ilaahay baa kugu barbaarinaya wa huwa rabbaak shay-an fa shay-an marka awal mabda' lidikri illaahi iyo xusuusta ilahay halkaa waa inay ka bilaabato addoonku bidaayadiisa hadduuna xusuusanin addoonnimadiisa markaa ma qirayo daacadiisana istiqaamo yeelan mayso waa inuu xusuustaa mansib kasta gaadh maamul kasta gaadh maal kasta yeelo haddaadan xusuusanin bidaayadaadu siday ahayd iyo taagdarrada iyo miskiinnimada aad xaalkaagu uu ahaa waxaa weeye laa tastaqiimu طaacatuk hadalkayga waadix ma yahay anigu qamqam baan maqlayahay may maqlaysaan odayaasha kullu shay tamaam allahuma asmicna min cindik in allaha yusmicu man yashaa waxaan kaloo walaalayaal xusuusanaynaa yacni bidaayadu sidaasay ahayd baahidana insaankuna fii kulli waqt kan daboola waa allah caloosha hooyada markaad ku jirtay waxaad u baahnayd kan ku siiyey waa ilaahay jalla jalaaluhu markaad ka soo baxday ee cuntada dadka waaweyn ee cunaan aadan cuni karin kan caanaha ku siiyey waa allah rabbulcaalamiin marka aad weynaatay ee aad ma garanaysaa cuntadii dadka ay cuni lahaayeen ilkuu kuu soo saaray ilkahan markii dhakhaatiirta ilkaha la weydiiyey maxay ka samaysan yihiin waxay ka samaysan yihiin maaddo ka adag lafaha waa maaddo laf ma aha lafta way u eg yihiin laakiin laf ma aha way ka sii adag yihiin markaasaa laga dhigay aqsaam iyo qaybo waxaa ilaahay kaaga dhigay hanaaya oo waa foolasha waxbaa lagu goostaa qaybo waa anyaab waa lilkasr waxyaalo adag yaa lagu burburiyaa qaybana waa gawsaha weeyaan oo waxaa loogu talagalay in lagu calaanjiyo cuntada marka cuntadii raashinkii sideeda inta badan ma qoyan hadday qoyan tahayna qoyaankeedu wuu yar yahay isla marka afka aad saarto baa ilaahay wuxuu kuu sameeyey lucaab ama dhareer baa markiiba soo baxaya oo macnawi yaho calaaqa leh maskaxda iyo waxyaalo iswada shaqaynaya dhareerkaasaa isla markii cuntadii kuu qoynaya dad baa cudur ku dhacaa oo dhareerkaas iyo lucaabkaa waaya dhibaatada ay kala kulmaan iyagun baa sheegi karaa aduu hadda ma dareensanid mana ogid laakiin qofku marka dhacaankaas iyo qoyaanka iyo candhuufta afkiisa uu ka waayo dhibaatooyin fara badan baa la soo gudboonaanaya nin baa beri ii sheegtay oo ii sheegay oo yidhi cudurkaasaa igu dhacay ee ii duce
aniguna waa iska weydiiyey waxaan idhi maxay kuu taraysaa candhuufta carabkiisuu soo saaray yani markaasuu ku xoqay gacantiisa saa in yaroo dhibicoo qoyaana ma leh wuxuu yidhi adiga hadda markaad cunayso cuntada adoo ku macaansanayaad iska cuntaa aniguse waxaan u cunaa buu yidhi sida kiniinkoo kale in yaroo beriis haddaan qaato waa inaan bakeeri biyaa ka dabageeyaa ileen dhaacaankii soo baxayey ee cuntada qoynaya ma leh haddana waxani waa filter oo afkan iyo waxyaalahan iska xidhan iyo cuntadan meesha maraysa iyo rawaa'ix kariiha ayay keenaysaa waxaa ka baabi'inaya dhaacaankaas qofka markaa dhaacaankaa hadduu waayo waxaasoo dhan baa isla uraya nicmadaas ilaahay ma og tahay anta laa tadkuruha ma ogid waa ilowsan tahay wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha inta adiga keliya nicamka ilaahay uu ku siiyey yaa koobi kara dhakhtar baa waxaa lagu leeyahay 30 sanuu baranayay indhaha 30 sano ayuu wuxuu baranayay sida indhaha loo daaweeyo hadday cudur ku timaado ama wax cilla ku timaado adigana way iska wadataa yaa kuu sameeyey allah rabbulcaalamiina kuu sameeyey min shaxmin walaxmin buu ka sameeyey manaaficdeeda yaa koobi karaa qiimaheeda intee waaye hal ilna sii oo lacag fara badan ha lagu siiya ma yeelaysid dhulka muggiisoo dahaba qaado oo labada indhood iska keen ma yeelaysid labada indhood baan dhahaa ixtiyaadan leanna beri baan waxaan idhi moogtahay hal il keen oo dhulka muggiisoo dahaba qaada haddii lagu yidhaa ma yeesheen baan dhallinyaro ku idhi mid baa yidhi anigaa yeeli lahaa hal il hadday tahay waa iska yeeli lahaa buu yidhi oo maxaad ku samayn leeda lacagtaan reerkii u diri lahaa buu yidhi soomaalidu waa fiican yihiin dadkooday had iyo goor ka fikiraya waxaan idhi labada ildhoodna labada indhood ma yeelayu yidhi laakiin hal il keliya hadday tahay waa iska oggolaan lahaa buu yidhi oo dhulka muggiisoo lacag aan helayn hama oggolaan lahaydin idinka dadka meesha fadhiya qaar iska yeeli laha waa jira hal il laakiin labada indhood qof oggola ma jiro ninkaana kowkaa miyaha allahu akbar hadihi nicmat ullah ilaahay waxaasoo nicmo aana siiyey inaan ku xusuusanno oonu ku shukrino ayaa lanaga doonayaa kadalika asamcu kadalika albasar kadalika saa'ira annicam ilaahay waana wada xusuusinaya wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'ida lacallakum tashkuruun huwa aladii khalaqakum min turaab ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون عقلك إن نوقف إذا سنو إن ربك كحسوس النوين إن لوقف إذا استكلية inaad xaajaadkaaga xayawaaniga kaliya ku adeegsato maaha caqligaagu waa inuu rabbigaa kugu xidhaa wailaa falaa caqla lak lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaami bal hum adal ulaa'ika hum alghaafiluun caqli aan rabbigaa ku danaysiinin arag aan rabbigaa ku tusin maqal أن ربك كن مقشين هذا الكيس فليس بعقل وليس بسمع وليس ببصر إلهي كوه نقبت باديو إلهي عقل إيا سمع إيا بصر يسقى النور دوية الله نسيه إخواني وحا مهمة إن خصوصا أيضا الدار الآخرة وما شاء أنه كل ما إنه ولقاء الله عز وجل وإلهي كل كيسا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنسان كأدونك أنتو دونها النولاد لكن مالين با إيمان يساء مهبين أو دمانيو دمشدنا دماشا معها نفتا مركي هربا يساقوا اسم قلين هو يدي اسم قلين ملحدين تي قالت إذن لجوغها بين تودويها كده يسننا مركي كلين هو يدي باي أبورتي هو يوحبا ما أبورتو
mid basaasir yaa ku abuuray baan ilaahay hooyaday baa ay abuurtay samaysay hooyada caloosheeda intay gacanta gelisay miya ku farsamaysay adeeg hooyo waxba ma abuurto al-khaliq huwa Allah marka kii ku abuuray ee nafta ku siiyay weeye kan naftaada oofsan doona Allah huwa alladhi yatawaffaakum insaankan marka intuu doonaba ha noolaado caalam kale ayaa u bilaabanaya mawdku ama dhimashadu dhamaasho maaha waa intiqaal min daarin ila daarul aakhirah tagaya insaanku waliqihi ilaahi way subhanahu wa ta'ala ula kulmi laha meesha ay ka bilaabanaysana waa dhimashada dhimashada الموت وما بعده غيب نغيهي هذا يعني فرسمده iyo teknolojiga iyo horumarka iyo wadamadan caalamkan aad joogtaan waxa lagu tasniifiyaa ama lagu tilmaamaa waxa la yiraahdaa dawladaha koobaad kuwa meelaha aan ka nimid iyo wadankeena Soomaaliya iyo kuwa joogana waxa la yiraahdaa caalamka saddexaad soo sidaas ma soo qaybtaas ma jirto caalamka koobaad iyo caalamka saddexaad iyo meesha joogdaba joogaane meel dhimashada la joojiyay ma maqasheen meel la yiri waxa la gaaray in dhimashadii la joojiyay oo dadku dhiman maayaan ma maqasheen hadda ka hor baan waxaan ku yiri haddii ay jirto meel saasa ishaga waan tagayaa meeshaas aan dagayaa ama sidaad dhahdaan waan iska dhiibayaa askunu hunaak haddii la yiraahdo meel dhimashada la joojiyay baa jirta ما جرتو ويا ما في لما نجوجين كرو كل مذعن بلو يهي كل وحلو يهي يعني خاضع أمرك إلهي ولا وضقاتي عدي ذكرتنا مله إن لا دمنايو دختر نمدي يوم قرنا يسعى في مات كي مل سرى إنسانكم أنت كجاري أو حيالها أي سميان أم فرسمدان حق عافماتك يعني هرمر حق للجاري لكن dhimashada intii hore waa ka sii badan tahay wuxuu yiri ninka sheekeynay wuxuu dhakhtarka aslan waxa loo sameeyaa isbitaalka loo dhisaa in dhimashada lagaga hortago laakiin meesha ugu badan ee lagu dhinto waa dhakhtarada guriyaha inta badan lagu ma dhinto dhakhtarka lagu dhinta yani dhakhtarkii loogu talagalay in dhimashada lagaga hortago waa meesha ugu badan ee dadku ku dhintaan ma tahay mise ma caalamul ghayb ka dhex shaqeeya dhimashadu wax insaanku shaqo ku leeyahay maaha malaa'ig baa soo degaysa dadku ma arkaan jirkii insaanka la mucaalajaynaya ruuxdii baa laga siibaya laakiin dadku waxba kama qaban karaan taxaddi baa ilaahay sameeyay falawla in kuntum ghayra falawla idha balagat alhulqum halka waay markay naftu halka soo gaadho jirka intiisa kala ka soo baxdo wa antum hina idin tanzurun wa daraktan oo leedin kama dafino insaanka inta la qaatay buuraha lagama tuurina hortiina ayaa nafti lagaga bixinaya wa antum hina idin wa nahnu aqrabu ilayhi minkum anaga idin ka dhow walakin la tubsirun wa ma aragtaan wa ghayb lidin ka qariib falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin haddaad run ku sheegaysaan inaysan bacthi usan jirin oo hadalkan aad leedihiin nolol baa dhimashada ka dambaysa haddaad run ku sheegaysaan haddaba celiya naftan baxaysa ma celin kartaan waa maya ma tastatiicu marka saas awgeed insaankii naftii markii laga bixiyo jutha hamida uu noqdo waa la aasayaa haddii la aasay oo laga tegey inta aan dadku ka dhaqaaqin إلهي سبحانه وتعالى روح ديسي وكسو علينا بقدرته تذكى وحوير النبي عليه الصلاة والسلام دوشي مرية شنقر وحكى الإسكرنا في لقوه ده مركا أي سعودان قرع نعالهم بمقليا أيوه مقليا إنسان كاس وبقدرة الله تعالى لكن وعالم غيب نقاه نقو ما رقنو ملائك باقفك وإيمان يسوى له ويدينيا صدح سؤال أو أباهن هذا إن أتكفي كرته أنت هذا الله كل من أيها لقويدين إياه منكر ونكير يكويدين إياه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم
mana aha imtixaan hadda intaad korka ka sii qaybto aad berri ka jawaabayso waa kolba sida aad u dhaqanto weeye ficlan rabbiga allah ma aha fi hadihi dunya rabbi ma ka dhigatay isaga un ma adeeci jirtay isaga ma ku xidhnayd awaamirtiisa ma qaadan jirtay diintaadu diin alislaam ma ahayd nebiguna sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqiisii ma raacday hadday jawaabtu nacam tahay فتقول نعم بادرنيسا كذب عالم القبور يا عالم البرزخ مركو دمادنا يوم القيامة أيا يحشر الله الأولين والآخرين لسكين الدونا وأنت واحد منهم قفل إلوب يا ملئ قفل قتك يا ملئ دتك قبورته ذيك سوى ضبح الدونا إيو قاون نر لهين إيو أن كبقبين إيو أن مدو حيستا أنجرين محو حيستا بهدو وحيل يضربه إبسن لها meel dhar laga iibsadana male meel dhar aad ka helaysana male qofku asturi kara cawradaadana male illa allah iyo amal saalixood hormarsatay maalinta dad baa dhar la siinaya dadka waxa kow ka anbiyadii kowna waxa uu ibraahim alayhi salaam ala wa inna awwal al-khalq yuksa yawm al-qiyamati ibraahim alayhi salaam waxa ku jira dadka dharka la siinayo waliba taaj madaxa loo saarayo aabbaha iyo hooyada ilmahooda quraanka bara ikraaman lahum dadkii yawm alqiyaamo wada qaaqaawan iyo dhar baa la siin waliba dhar jannada laga keenay baa la siin taajna madaxa loo saari maxay ku heleen waa biakhdi waladihima alqur'aan waladkooda ama gabadhii ay dhashay ama wiilkii ay dhalay oo qur'aanka bartay awgeed baa ilaahay ku ikraamay laana ilaahay qur'aanka wuxuu ka jecel yahay male waa kalaamu marka maalintaas naga wada dambaysay yawm alqiyaama ee qofka intuuna ilaahay ba la kulmin isagoo qabrigiisii ka soo baxay dhar jannada looga keenay iyo taaj madaxa loo saaray ee uu isku ogay hadduu ilaahay u tago in loo naxariisanayo marka maalinta maalin cadiima waay dadkuna kurbadu meel weyn bay ka gaaraysaa ilaahayna ballan buu qaado wuxuu yidhi wa inna yawman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun kun sano intaad ka tirsataan kun sano maalin laba maalin saddex maalin boqol maalin kun sano iyo maalintaasaa isu dhigantuu ilaahay yidhi subxaanahu jalla jalaaluhu dadkuna kurbo weyn bay yay la kulmayaan nebiyadii bay shafeeco ka dalbayaan inay ilaahay u weydiiyaan inuu fasliga iyo dadka kala saaridooda soo dedejiyo ilaa waa laga aamusay kun sano laga aamusan yahay ka waran oon biyo bakeeri biyana lagu siin oo qorraxda intaa lagu soo dhoweeyey meel adag bay ka gaadhay dadka hadday dhimasho jirto waa la dhiman lahaa laakiin dhimashana waa la mamnuucay marka waa kuway nebiyadii nebi ka soo bilaabeen aadam mid walba markay u tagaan nebi kasta wuxuu yidhaa maanta rabbigeen wuxuu u carooday caro uusan weligiis caroonin hadda ka horna tan oo kale caroon doonin aniga marka ilaahay uma tegi karee hebel u taga nuux bay u tageen nuux sidanaa tahay awal rasuul baa tahay samaaka allahu cabdan shakuura noo shafeeca qaad oo ilaahay noo weydii wuxuu yidhi anigu hal dacwaan lahaa ducaan lahaa ducadaydiina qoomkaygaan ku habaaree anigu ilaahay maanta u tegi maaye u taga ibraahim calayhi salaam waa la ammaanay khaliiluraxmaan baa wuxuu yidhi anigu saddex goor baan been sheegayoo ilaahay maanta wuu cadhaysan yahayoo hortiisa ma istaagi karo saddex been buu sheegtay been ma maqasheen saddexdaa been waxay tahay haddaad maqasheen waa maqasheen haddaad maqalin waa haddaan idiin sheegaya kii horey u maqlayna xusuus bay u noqonaysaa aniga horey baan u maqlayn laakiin xusuus bay u noqonaysaa si aan ilaahay uga cabsado saddexda been uu sheegtay tan koobaad waxa weeye markii uu doonayay asnaamta inuu burburiyo ay qoomkiisu ay ilaahay kayrkiisa caabuday jireen si uu u burburiyo meesha inuu ku haruu rabaa reerkii waa hoydeen isagu inuu joogu rabaa wuxuu yidhi innii saqiim waa jirranahay iga tag anigu waa buka ma socon karee hal beenuu taas meel ku qortay markuu wada burburiyey asnaamtii khayrullaahi la caabudayey ee digada ka wada dhigay ee kii ugu weynaa u soo reebay ee fahaskii uu ku burburiyey u suray maalintii berri markii la soo noqday la arkay asnaamtii oo wada burbursan yaa la yidhi yaa man facala haada wiil baa la sheegay ibraahim la yidhaaho maalmahan soo qabta waa la keenay war ibraahiimow maadaa burburiyey maya kan aad arkaysaanee ugu weyn